marka waxaan leenahay ha soo dhawaado farqahan dhagax uga buuxinayna waanu aarayna hadii la yiraahdo madaxweyne farmaajina waxaan leenahay wixii xaari mooday wixii aan dhuuso mooday ayaa xaari ugu noqday waxaan rabnaa inuu ka shalaayo riditaanka uu riday Xasan Cali Khayre inqilaabka uu sameeyay waa u aarayna beeshu ku dhasho magaalada Muqdishona waa in anagu waa la yiri dhig oo muslim waa muuqda ma qarsoona dhiiga khayr farmaajo noogu maqan Xasan Khayre waa inaan u aarno farmaajina waa inuu madaxweyne madaxtooyada uga dambeeyo qofkaad arkayseen waa kolii horeetee sirdoonka qaranka Soomaaliya Sambaloshe dhaarta uu dhaartay ee uu yiri madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed dhagaxyo ayaa farqaha uga buuxinaynaa waxaan u aaraynaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo isku qabiilnahay maanta xaaladda taagan markaad fiirisid inuu Sambaloshe dhaartii uu dhaartay uu maanta hawsheeda ku jiro waan soo noqonaynaa Sambaloshe marka hore ra'iisul wasaaraha xilka dhimista lagu sameeyay waa Roble waxaa la magacaabay 17 September 2020 waxaana loo magacaabay inuu dardargeliyo doorashadii dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigeedu u dhaafay Roble oo aan doorashada howlaheeda faraha la gelin ayaa u dhoofay dalka Djibouti oo ka dhacaysay caleemasaarkii Ismaaciil Cumar Geelle caleemasaarka wuxuu kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Soomaaliya oo cilaaqaadkooda wanaagsanayn Roble wuxuu dib ugu soo noqday dalka Soomaaliya muddo yar markuu joogay Roble waxa uu safray dalka Ingiriiska waxa uu kala kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday Roble inuu yimaado dalka Kenya ra'iisul wasaare Roble waa ka aqbalay madaxweynaha Kenya inuu yimaado dalka Kenya Roble markuu ku soo noqday Muqdisho waxa uu bilaabay inuu xiriirka u jaro madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Roble waxa uu bilaabay inuu kulamadooda badiyo musharaxiinta isku qabiilka ah Roble maalinta uu safrayay ee uu duuli rabay dalka Kenya madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa warqad soo saaray oo lagu xanibayo inaan wax heshiis la gali karin Roble waxa uu soo saaray warqad uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya dastuurku ku xadgudbaya Roble maalinta uu dhoofayo aroorteeda waxa gurigiisa ku soo booqday ninkay isku reerka yihiin ee la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Kenya badda inagu haysato waxa saxiixa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isku heeb yihiin ra'iisul wasaare Roble maalintii wuxuu u dhoofay dalka Kenya wuxuuna ka degtay magaalada Mombasa waxaana ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxbay kala saxiixdeen ummadda Soomaaliyeed ilaa hadda waxay kala saxiixdeen warka ma hayaan dawladda Kenya ayaa warbixin ku soo qortay beejkeeda oo kaga hadlayso in badda Soomaaliya lagu dhameeyo wada hadal muddo yar kadib dawladda Kenya qoraalkaasi waa ka saartay Roble markuu dib ugu soo noqday Muqdisho wuxuu la soo noqday waji kale cusub maalmo kadib waxaa bilowday kacdoonka kayska Ikraan Tahliil wuxuuna ku bilowday sidan ila daawada على كل حال قبل فهد ياسين كل رجيس ياسين فري والنقبض انت لها المعشبة ايغان كربنا ايغان كغفدنا وينكش لاينا يعني هدي الهي ادمو كمان محيت ارن اي كبدبادا يعني ما نقدونتو شبابنا محيت بنتي يعني laga sheegin shabab soo wax u dilay soo wax u maareeyo inta waa la garanaya wax laga gabanay meeshaan maanta ma jiraan dad qalashaatid aatihiin boqol igraan ka horeysaad cunteen laakiin igraanta ku badbaadayseen ama ku fakanayseen ma ahan anigu waxaan u sheegayaa maxay in ra'iisul wasaare Roble arrintan mar iyo laba aday hoostaada iimaanaysa adaa laga rabaa adaa lagaaga fadhiya wadankan awoodiisa maanta adaa gacanta ku haysto farmaajo iyo kooxdiisa gabadheena anaga way qasheen wayna dileen sidaad arkaysaan Roble markuu Muqdisho ku soo noqday waxa bilowday kacdoon dumarka la iska soo hormarinayo kayska Ikraanna cirka isku shareeray hooyada Soomaaliyeed sidaad ka maqlayseen waxay eedda dusha ka saartay taliyihii horeete ee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin waxay eedaysay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxay ammaantay ra'iisul wasaare Roble ayaa idaacadda soo fariistay maalin kadib waxa uu yiri 48 saac ayaan u qabanayaa ciidamada nisa baleela daawada in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka
inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay soo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo. master Roble 48 saac u qabsaday ayadoon dhammaanin ayaa taliyaha nabad sugidda mudane Fahad Yaasiin warqad soo saaray. warqaddaasuu ku codsanayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddiga amniga qaranka inay isu yimaadaan. taliyahana wuxuu codsaday inuu arrinta kiiska Ikraan qusayso uu halkaa ku soo bandhigi doono. ra'iisul wasaare Roble oo dan leh kala yimid Kenya qorshe amniga Soomaaliyana lagu burburinayo wato ayaa saacado kadib warqad soo saaray. warqaddaasoo xilka uu kaga qaadayo taliya Fahad Yaasiin. waxa uu yidhi waxaan si ku meel gaara u magacaabay Bashiir Goobe. madaxweynaha Soomaaliyeed uu ka duulaya dastuurka qaranka Soomaaliyeed ayaa arrintaa ka hor yimid. waxaa dhacday wadahadal madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la isugu soo dhoweeyey habeennadaas. maalintii ku xigtay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa aqbalay iscasilaadda taliyaha sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mudane Fahad Yaasiin. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magacaabay taliyo ku meel gaare wuxuuna u magacaabay Yaasiin Farey. ra'iisul wasaare Roble ayaa arrintaasi ka hor yimid oo warqad soo saaray. isla maalintiiba Roble waxa uu shaqada ka fiijiyey wasiirkii amniga qaranka master Xundubey. waxa uuna magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo loo yaqaano 30 milyan haysto. madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hor yimid. maalintii ku xigtay ra'iisul wasaare Roble waxa uu dhaariyey wasiirkii uu magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur asagoon horgeynin baarlamaanka Soomaaliyeed. Roble markii uu dhaariyey 30 milyan haysto maalintii ku xigtay wuxuu soo saaray warqaddaasoo ku amrayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mishaarkooda in asaga la soo mariyo. sidaan la wada soconno sistamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lacagta lagu siiyo wuxuu ahaa mid 3 sano ilaa 4 sano soo socday oo IMF-ta iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen. waana arrin la xiriirtay deen cafinta Soomaaliya. ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxa uu caddaatay Roble inuu fulinayo qorshe ay u soo dhiibtay dawladda Kenya. qorshahaasi oo ku wajahan amniga qaranka Soomaaliyeed. Roble muxuu ku diiday in la soo bandhigo arrinta ay hayaan sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Roble muxuu ku diiday guddiga heer qaran ee madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay. Roble muxuu ku diiday inuu siyaasadda ka saaro kiiska Ikraan sababtoo ah wasiir xil laga qaaday iyo cadaalad la raadinayo isma qusayso. sababtoo ah mishaarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la cuna qabateeyo iyo cadaalad la raadinayo isma qabato. waxaa dhacday madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed markuu arkay duulaanka lagu yahay ciidamada xoogga duulaanka lagu yahay amniga qaranka. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu go'aansaday in ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah awooddiisa la nusqaamiyo. shalay oo taariikhda ahayd 17 Sebtembar ummadda Soomaaliyeed xaqiiqdii ayay ogaatay. dalka Turkiga waxaa ka imaanaya taliyihii horeetee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin wuxuuna ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho oo uu shirkii amniga qaranka ka dhici lahaa maalinta 18 ah. dalka Jabuuti ayaa waxaa lagu xanibay mudane Fahad Yaasiin. dalka Jabuuti diyaaraddii taransafka ku ahayd waxaa dib loogu celiyey dalka Turkiga. dawladda Jabuuti iyo Roble iyo dawladda Kenya qorshe ay wateen buu ahaa. waxaana loogu talagalay in shirka lagu soo bandhigayo kayska Ikraan wixii xogay laga hayo in la baajiyo. ummadda Soomaaliyeed su'aal bay shalay isweydiinaysay. haddii Fahad iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed eed loo soo jeediyey soo ma aysan ahayn in intay dalkooda soo galaan eedda loo soo jeediyey ka jawaabaan. Roble oo cadaalad raadin u burburiyay amnigii qaranka
maxaa uu jabuuti oga dalbaday in fahad yaasiin dib loogu celiyo turkiga ummadda soomaaliyeed shalayto waaga ayaa ku baryey rooble waa caddahay inuu fulinayo qorshaha dawladda kenya